madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shalayta munaasabadii tiina la midka ahayd waxa uu kaga hadlay barnaamijka siyaasadeed ee qaranka Soomaaliland ee ku wajahan nidaamka doorashada soo socota iyo hanaanka axsaabta iyo ururada siyaasadeed ee maxaan ku dhaadayay Soomaaliland jawaab bay maanta ka bixiyay xisbiga wadani musharaxa Ciro waxa uu leeyahay ururo xisbiyada maanta jira waa kulmiye iyo wadani iyo ucud noqon maayaan ururo siyaasadeed mana suurtoobo urur ka qayb geli doona doorashada 13 November ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland horta marka ugu horeysa sida madaxweynuhu uu sheegay xisbiga kulmiyana uu cadeeyay marna lagama maqal madaxweynaha Soomaaliland doorashada 13 November dhacaysa dib ha noqoto madaxweyne xisbiga kulmiye intuba waxay diyaar u yihiin in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo ururada siyaasadeed waxa qeexaya oo dhigaya xeerka la yiraahdo xeerka 14aad law number 14 ayaa qeexaya xeerka waxa la ogolaaday xilligii uu mudane Cabdiraxmaan Ciro uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xeerka la ogolaaday goormu xeerkaas xaraan noqday goormu Cabdiraxmaan Ciro xaraan ka noqday wuxuu xaraan ka noqday markii uu baarlamaanka ka baxay ee uu musharaxa xisbiga wadani noqday ayuu isaga ka xaraantimoobay xisbigooda xeerkaasi waa xeer qarankan ka jira madaxweynahan baabiin karin xisbiga kulmiyaan baabiin karin xisbi kalaan baabiin karin xeerkaasi waxa uu kaga bixi karaa halka uu maanta xeerarka qaranka kaga jiro dariiqada loo maro ee uu xeerka ku noqday marka dib loogu celiyo xeerkaasi waa xeer maanta jira xisbiga kulmiye wuxuu ka mid noqonayaa xeerka iyadoo la raacayo ururada wadani kuwaasuu ka mid noqonayaa cidna kuwaasuu ka mid noqonayaa haddaanu kulmiye nahay xuurtii wadkeeda aragtay noqon mayno marka la yiraahdo urura la furaya dee qaylin mayno Cabdiraxmaan Ciro wadani baa xuurtii wadkooda noqotay arkay maxay uga qaylinayaan shalayta muxuu ku noqday xisbiga wadani muxuu ku noqday xisbi muxuu kaga soo gudbay ururnimo muxuu doorashadii hore ee madaxweynaha kaga qayb galay muxuu Axmed Siilaaye markuu la tartamayay kaga qayb galay muxuu markay Muuse madaxweynaha ku tartamayay kaga qayb galay kaasaa la soo maray kaasaana imkana la maraya mana dhici karto nin jira oo oran mana jiro nin oranaya xeerkaasi ma jiro mana jiro nin oranaya xeerkaasi maxaan ku dhahday ma shaqeynayo anuu xisbi qaran baan hayno kulmiyaan hayno ilaa intaas la soo maray tee baqtiga nasiibka siyaasiga baanu ka mid nahay dad baa damac leh dad baa aragti siyaasadeed leh dad baa xaq leh dadka xaq leh xeerka waxa loo sameeyay siyaasiyiin qaranka reer Soomaaliland ka tirsan oo saddexdii xisbiyo hore midna ahayn wadani iyo kulmiye u cid oo dood jeedsaday oo oranaya siyaasaddu yaanay ugu jirin minabol xisbiyada qaranka ee imika jira qolada siyaasiyiintiina waxay ka tagaysaa qodobka dastuuriga ah wuxuu oranayaa Soomaaliland waxa lagu hagayaa lagu hogaaminayaa nidaamka axsaabta badan Soomaaliland waxa maamulaya saddex xisbi qaran waxa weeye farqadiisa labaad faqradiisa saddexaad waxay oranaysaa marka loo baahdo ururo siyaasi inay samaysmaan xeer gaar ah la sameeynaya oo lagu sameeyo ururo siyaasi ka isagoo la fasirayo ayaa waxa ka dheegmay xeerka law number 14
xeerka 14aad oo qeexaya 10 sannadoodba in mar la furo ururada siyaasiga ah si chance loo siiyo muwaadiniinta iyo dadka siyaasiga ah ee doonaya inay siyaasadda ka qayb galaan qodobka ay ku qotontaana waa qodobkaana waxaan leenahay kulmiyana kama suuroodo cidi ka yeeli mayso wadanina cidi ka yeeli mayso cidna cidi ka yeeli mayso inay iyagu ka dhookaysnaadaan arrinta siyaasadda ee ciddii kasta oo muwaadini wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo tartanada siyaasadda waxaanay u hirgelinaya oo u saamaxaya dastuurka qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxaana cadaynaya oo qeexaya law number 14 halka imika marayso waxay ku soo soconaysaa sidii madaxweynuhu shalata u sheegay guddiga ururada iyo axsaabta ee madaxweynuhu magacaabay ee u fasaxaya xeer number 14 iyo guddida maxaan ku dhahday doorashada qaranka inay iyagu sameeyaan jadwalka iyo maxaan ku dhahday dariiqa iyo jaranjarada la marayo ee lagu kala horayo ururada iyo axsaabta iyo sida ugu gudbaya siyaasadda waxaan leenahay markaa waxa sharci lagu yahay oo qarankani uu sharci ku yahay waxa uu qarankani qaran ku yahay waxa qarankan lagu hogaaminaya waa sharci madaxweynaha maanta halkan fadhiya waa madaxweynihii shanaad ee qarankan Somaliland soo mara nina muu dhalan isagoo madaxweyne ah nina intuu doono ma doonayo inuu madaxweyne noqdo uma suuro gasho qarankan nina u suuro geli mayso inuu ku hanjabo ama inuu yidhaahdo ururo siyaasi furmi maayaan waxa caynkaasi sidaa noqon maayaan qarankani waxa uu ku soconayaa dastuurka qaranka Somaliland iyo xeerarka maxaan ku dhahdaayay ka dheegma sharcigan waxaan leenahay markaa saaxiibaday waxaan leenahay ninka doonaya inuu qaranka maamulo qarankan ninka doonaya inuu maamulo waa inuu horta isagu noqdaa qof u hoggaansan qarannimada ninka doonaya qarankan inuu maamulo waa inuu noqdaa nin sharciyadda qarankan aqoonsan ninka doonaya berita inuu madaxweyne ka noqdo ninka doonaya berita inuu qarankan maamulo waa inuu ahaadaa nin ogol qarannimada Somaliland inay noqoto ninka ruushka imika dalkan Ukraine weeraray nuux iyo madaxweynaha ay annagu waxbaanu ku soo barnoonu garanayna ayaa wuxuu ku maamaahiisa waxa kamid ah yasliti khochit kumenda fat ti dolshin batchin yaasta hadaa doonaysa in aad wax xukunto waa inaad adigu ogolaataa in lagu xukumo marka waxa weeye waxaan leenahay qoladan saaxiibayaal sharciga wixii uu ogolaanaya sharci noqonaya waxaan leenahay qalqalinta iyo arrimaha sharci u gafka hay'adaha sare ama hanaanka siyaasadeed cidda doonaysa inay berita ku soo noqoto ama ku soo baxdo ay sameynayaan macnaheedu kama yara macnaheedu wax kala fasiri maayo macnaheedu wax kala sheegi maayo macnaheedu waxa weeye inuu qarankani burburo macnaheedu waxa weeye inaynu isku dhex daacadano sharci jiri waayo taasna waxa meesha ka taala sharci waxaynu ka heshiinay qawaaniintaasaa lagu soconayaa kaasaa ninka madaxweynaha qabanaysa xusbigiisa qabanaysa mas-uuliyiinta wasiirada qabanaysa taasaa xusbi kastana qabanaysa aad iyo aad baa umahadsantihin